سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد runtii waxaan u mahadcelinayaa ururka dhaxalow isku xilqaamay ururka xafladda. waxaan kaloo u mahadcelinayaa senatarada, xildhibaanada, aqoon-yahanka, odayaasha, dhalinyarada, waxgaradka iyo haweenka intaba runtii ka soo qayb galay madashan iyada ah. dhammaantiin waa inii mahadcelinayaa. xaal marintiina boqolkiiba boqol ay ka gadoomay aada iyo aadaan u mahadsantiin. haddii aan intaas uga gudbo oo runtii anigana inii mahad celiyo waxaa laali iyo wixii saaxiibka yuusuf xasan ou sheegay. haddii aniga cafis laga dalbaday anigana aan dalbado hadday wax iga dhaceen ama dad wax iga gaareen intaba. intaas markaan ka gudbo runtii arrintan soomaalida dhan ay u istaagtay sida la sheegay oo ah murankii nagala dhexeeyey badda annaga iyo Kenya. waa masantahay imaam xasan waa saaxiibkay waana imaamkeyga. Soomaaliya waxay rabtay in aan tagno maxkamadda adduunka. Soomaaliya waxay rabtay in annaga iyo dowladda dariska aan nahay ee Kenya baddeena naloo kala xadeeyo. xadayntaasna loo maro habka sharciga caalamiga ah oo ah in xariiqinta laga jiido beriga oo aan badda laga jiidin. Soomaaliya waxay rabtay in dhulkaas lagu muransan yahay oo annagii Kenya naga dhexeeya oo 125 kilomitir square ah inuu xaggeena soo maro. Kenya waxay rabtay oo ay sheegatay in xadka waa hore ay calaamaysatay Soomaaliyana ay ka aamustay. sida inta laga sheegay 1979kii calaamaysanay tiri 89kii calaamaysanay 95kii calaamaysanay 2005kii calaamaysanay. Soomaali nagala hadashada ma jirin oo waa noo aamusay Soomaalidii. taas daraaddeed hana loo xukumo cid waxaa nagu haysato malay maxkamadda la tagtay. markii hore horta waxay diiday inay maxkamadda aado oo waxay tiri siyaabo kale aan ku kala baxno. maxaan ku kala baxaynaa wada hadal? maxaan ku kala baxaynaa oo kale African Unionka hanoo garsooray lehen oo midowga Africa annagii Soomaali ka tirsannahay. waxay kaloo xataa soo jeediyeen special tribunal wax la yidhaahdo oo CLC-da Commission of the Law of the Sea ee hadda u qaabilsan UN-ka badda ay sameyn karta hana loo sameeyo. Soomaaliya intaasoo dhan ma ogolaanin. Soomaaliya maxkamadda caalamiga ee cadaaladda adduunka ayay dalbatay. halkaasaa la isla aaday. waana run madaxweyne xasan sheekh xilliga uu madaxweyne ahaa ayaa dacwadaas la geeyey maxkamadda caalamiga. annagii Kenya isma dagaalsanayn. wax dhibo hadda naga dhexeeyena ma jirin. colaad naga dhexaysana ma jirin. sida hadda la isugu kiilaayo oo la isugu miisaayana ma jirin. marka waxay tusaysaa dee in la isqabto oo cadaaladda adduunka la aado macnaheedu maaha in la isdagaalo. qasab ma aha in la isdagaalo. madaxda dalka joogtaa laga rabaa ayadoo cidna la dagaalin oo cidna aan dhibaato u geysanin inay hanaan diblomaasiyadeed iyo hay'adaha caalamiga ay aadaana laga rabaa. Kenya maxkamaddii waa tagtay waxay sheegatay waxa ayada inay leedahay. marka waa inaan mid ogaanaa maxkamadda markay xukunka ridaysay waa dhageysanayseen intiina badanaa laga yaabaa qaadiyadda Maraykan ee ahayd ee maxkamadda go-aankeeda ridaysay 1 saac ku dhowaad ayay hadlaysay. 79 page oo dokumenti akhrisay. 200 iyo dhowr article ku qornaa ama qodob. intaas waxaa la dhageysanayay wuxuu ahaa go-aanka ay ridayso qaadiyadda la sugayay oo beeshka ugu dambeeya ku qornaa. Kenya waa laga diiday. waxay sheeganayso dhan waa laga diiday. waxay sheeganaysay xadka in la calaameeyo lama calaameynaa la yidhi. Soomaaliya naguma qabsanay tiri waa in ku qabsataa la yidhi. Soomaaliya inay ku qabsanayna macnaheeda ma aha inay ogolaatay ma aha. ayaguna waxay rabeen aamusnaanta inay ogolaasho ku fasiraan. waa laga diiday. meeshaas waa meesha MOU-ga 3 jeer oo faa'iido noo lahaa. meel ka mida waxaa waaye inaan badda ka muransannaha ku qorneed. waxaa la yidhi MOU ku taallaa in meesha muran ka jiro oo lagu qabsaday. waa lagu qabsadaa ku taallaa la yidhi. MOU-gu wuxuu kaloo faa'iido u lahaa wax la yidhaahdo continental shelves oo ah qalfood qaaradeedka ka xageeya economic zone-ka
inaan 350 kilomitir aan helno oo markaas deadline-keeda dhacaya runtii in laga gaarsiiyey ahayd baarlamaankii anigii saaxiibkeena dheer aan ka wada tirsanaa nafteeda waan ka tirsanaa maalintii la diidayna waa dhex taagnaa waan la yaabanaa laakiin baarlamaankii ku xigay jawaari guddoomiyaha ka ahay sagaalaad yaa markii looyaradii imaadeen soo celiyey MOU-gii sababtoo waa laga maarmi waayay haddii la diidi lahaa Kenya waxay ku marsiyootay Soomaaliya objectionkii inaan isdiidin annaga ayaga inaan qalfal qaareedka xareysano Soomaaliya baarlamaankeeda diiday taasi looga baxsada baarlamaankii ku xigay ayaa soo celiyay MOU-gii maadaama ay looyaradii dalbadeen arrintaas iyada ah waa marka labaad faa'iidada lahaa oo aan ku helnay 350 mayl oo continental service waxa la yiraahdo yaan ku helnay waa faa'iidada saddexaad wuxuu ahaa wuxuu yidhi u furay maxkamadda la aadi karo oo ah inaan wada hadalnay annagii Kenya oo wada hadalkii annaga hal fadhi inaan yeelanaan jeclahay ma hubo wasiiradeena la weydiinaa markaas jiray laakiin xukuumaddii naga dambeysay madaxweyne xasan sheekh waa hubaa wasiirkeeda arrimaha dibadda Baylo markaas ahaa mar inay Kenyaanka wada fadhiisteen mar kale la balansanayna ayaga gooyo diiday wali waxay dhaheen Soomaaliya ma tagi karno Djibouti lagu ballamay ka baaqsadeen waxaa loo cuskaday in la wada hadlay oo wada hadalka Kenyaanka marka waxay dhaheen arinta wada hadal kaliya lagu xalinaa maxkamadda uma leh awood inay gasho laakiin waa laga diiday waxaa la yiri wada hadalkii waa soo dhamaaday marka maxaan haysanaa MOU-gaas marka 3 arrimo Soomaaliya u keenay in maxkamad aan tagi karno keenay in aan ku qabsanay Kenya wixii ay sheeganaysay 4 jeer oo hore laga soo bilaabo 79kii ilaa laga soo gaaro 2005 2009kii muran la geliyay dad Soomaali waxay arkayeen muran gelinta inay xumaan tahay laakiin waa lagu faa'iiday hadda markii maxkamaddii la tagay 350 maylna waa ku soo helnay waxaas oo dhan oo wanaag adoo qabanaya aamina si fiican u sheegtay xildhibaanada waa sidii nabi yuusuf oo kale asagoo la dulmiyo ceelka lagu riday walaalihiis ay ceel ku rideen ee haddana waxay lahaayeen awr wanaagkiisa tuug waxaa jiray ay lahaayeen sida la sheegay laakiin maxaa meeshaas marka anaga aan ka bara karnaa arrintan guushii waa timid waa soo hooyanay dad badan oo hadda waxaa arkaa horta waxa dadka wareeriyey ya waxaa maqli jiray culummo aana wareerisay dadka oo dhacda dadka waxaa wareeriyey ka horta kuwa aqoonyahanka sheegana kuwaas dadka wareeriyey mid walba waa soo istaagaa wuxuu ku leeyahay kayskan saan waaye intay ka dhacday wax inta badanna waxay ku hadlayaan waa theory la yidhaahdo dhagar maleeg conspiracy theory la yidhaahdaa dhagar bas ay maanta oo waxooda ku dhisan yihiin wax mala awaal ay isaga dhisan yihiin MOU-ga waa hal page iyo bar ingiriis simple ku qoran xataa ingiriiska adag kuma qorno oo sharciga adag xataa kuma qorno qof kasta oo luqadda ingiriiska yaqaan akhrin kara fahmi kara ninbaa ku soo istaagay saas weeye professor Hebel la yiraahdaa arintaas saan waaye kuwaas dadka waa wareeriyay siyaasiyiin sida la sheegay dan lahana dadkii waa wareeriyay oo isla Hebel ku qalloocina dadkii waa wareeriyay dadkii caamadaha marka waa la wareeriyay ayagu dambi ma laha oo aqoonyahankii iyo siyaasiyiintii waa wareeriyay laakiin meesha wax dhib badan ma oolin baruntii hadii la fiiriyo maxay marka anaga halkaas aan ka aadnay waxaan rabnaa inaan ka aadno Soomaaliya iyo Kenya annaga badan lahayna ma jirto bad ay Kenya lahayd ma jirto annagana badda Cabdiraxmaan oo si fiican u sheegay xildhibaanka annagana si aan u rabnay badana baysay lahayd waxaan niri badda maadaama aan loo kala calaamaynin badana waxaa lagu yeeshaa page-ka labaad ay ku qoran tahay xukunka laga soo saaray hadda heegay ku qoran tahay qofkii raba qaadiyada waxay tiri bad waxaa lagu yeeshaa ama xad waxaa lagu yeeshaa inay labada dowladood ku heshiiyaan oo ayagay dhahaan saanan ugu heshiini ama in loo kala gal sooro laakiin adiga inta iska baxdid adiga hadda inta baxdo dhul meeshaan yaallo ana iskala ma dhigi kartaa ma dhigi kartid ha waa inaad sharci u haysataa soomaalidii waxaa laga dhaadhiciyey baddeennii waayo wax la qaadana waa sida la sheegay isticmaalkii soo nooga tegey annagii Kenya arrintan kuma wada hadal dhul iyo bad labadaba faraha isaga qaadnay waana run oo waxaa la sheegay Yuusuf Xasan si fiican u dhigay annaga Soomaali weyna ilaa hadda weli meel looga noqdo ma jirto ha halkaas aad deganahay waxa markii Kenya badda calaamaysato looga aamusnaa waxay ahayd hal calaamay hadii la yiraahdo xagee laga calaameynaa dhulka ma dhahayno ha dhulkee waa imaanay marka shida loo yiri alla anaga waxaan aaminsanay wax la yiraahdo Soomaali weyna la aaminsanaa ayadana shibtii rabtay inay ka faa'iideysato halkaas waa meesha marka ay cilada ka timid marka dhulka waa la gartay badii hal xadeeyaa la yiri
annaga waxaan idhi dhulkaan oo kaga bilaabo ayagana waxay dhaheen baddahan oo kaga bilaabo laakiin sharciga adduunkii oo la jiraa annagoo nala jiraa daas waa maxkamadda u dhiirin annaga laakiin wax annaga aan lahayn oo meel noo yaalay oo hadda nala ka qaatay dadka qaar waxaan ku qabsay ku qadimay sidaa la yidhi kenya waa nagu qabsatay waxay naga qaadatay ma jiraan waxa waa ku muransadeen dhexna u yaalay boqolkiiba 80 sidaa wasiirka uu sheegay annagana loo xukumay ay looyaradii ay sheegeen waa takay diiday soo maaha waxaa loo furay wax la yidhaaho humanitarian access oo waxaa la yidhi Tanzania iyo Soomaaliya isku tagaaya haddii saa lagu xukumo Kenya waa xirmaysaa meelaha loo furaa la yidhaha loo shaqfal duleeliyo macnihii meelaha looga raadiyo minhaajka qiil yaraa looga raadiyo looga fiiriyo soo maaha waaba sheegtayba qaadiyada maba qarinba waa meesha uu qaadiga Soomaaliya diiday oo yidhi ma jirtay sideeda ha loo dhaafo marka wax annagana la ka qaata ma jiraan waxayni waa haysanaa guulaana jiifnaa dowladihiina waa ka wada shaqeeyeen oo kulligood midaan ka shaqaynin ma laha baarlamaankii sideedada saaxiibkeena dheer aan ku jirnay wax difaac lay naga ahayd waa run xumaan kama haynba waxaa la qaatay hala soo dhiciyay ka ahayd laakiin baxrayna geli gaareen baarlamaankii sagaalaad ka gaaray laakiin wax baarlamaan loo sameeyay saas waaye baarlamaankii sagaalaad ka gaaray oo soo qabto oo jawaari maadaama nin sharciga yaqaanana oo ahaa waxaana aad u fahmay asagii dowladdiina isla fahmay runtii madaxweynihii markaas joogay si fiican oo uga shaqeeyay xukuumaddii wixii dhammaay dad isfahamsanay noqdeen dadka markay aqoon leeyihiin waxay uga duwan yihiin dadka kale waa sidaas waa inaa ogaatiin intaasay uga duwan yihiin dukumentiga loo tegay akhrinayaan waa fiirinayaan dalka danba ugu jirtaa haa laakiin haddaadan aqoon lahayn dee wixii waa ku wareereysaa waaba waxaa is leedahayba iska tuur intii ay ku imaanayeen marka looyaradii ay yimid waa la soo celiyey waa la keenay waa MOU gadaala loo soo celiyey doodii saasay ku bilaabatay saasaan ku guulaysanay inaan ogaano waayo marka maxaan ka baranay marka horta Soomaali badan sharciga adduunka fahanay waa runtiis Cabdiraxmaan hadalku uu yiri waa markii ugu horeysay diblomaasiyada aan ku guulaysanay horta doodii Soomaalida waxay baratay sharci muxuu yahay international law muxuu yahay maxkamadda cadaalad adduun maxay tahay anaga dee raganimo aan ku qaadan jirnay Soomaali Kenya inama taqaanaan iyo dagaal Soomaalida dagaal ay taqaanaan wax sharci iyo diblomaasiya lagu kala baxaa Soomaali ma taqaano bal iskuma sheegayno inaan diblomaasiya sharci horta aan guul ku keenay waa taariikhi waa koow oo markii ugu horeysay inta kale qorayna noo cabaysnaa hadda xataa waa noo cabaysan yahay marka qoray noo cabaysnaado lama rabo adduunka sharciga lagu kala baxa Kenya waa naga awood badan tahay waa naga xoog badan tahay waa naga galgal badan tahay waa naga taageero badan tahay madaxweynaha hadda wuxuu gudoominayaa Soomaaliya golaha ammaanka yow la fadhiyay madaxweynihii ugu horeeyay Afrikaan oo qaabilo madaxweynaha Mareykanka ku tabarmanihin laakiin sharciga noo hiilay sharcigan aadnay sharciga noo hiilay waliga Allah marka sharciina ku dhiganaata u baahanta xoog hadaa aad waa laga xoog badan wax ku keenay male marka heesaha la alifayo iyo abwaanada waxaan kula dardaarmayaa inay sharci iyo sifilnimo iyo ilbaxnimo iyo halkaas dadku u jeeyaan waa la qaadanaa iyo waa la dilaa iyo qoraya la qaadanaa iyo waa gaala la dilaa iyo xogaa shiribka in badan oo ficneeda ku jirtay laakiin xogaa dagaal ku jiray dagaalkan tirada badan Soomaali waa ku baaba'deen aan iska dhaafno wax lagu keenana ma la runtii marka waxaan kaloo ka baran karnaa wixii midnimo lagu raadiyo waa la helaa wixii midnimo lagu raadiyo waa la helaa wixii tafaraaruq lagu raadiyana waa la soo weynaa ayana taasaan ka baran karnaa waxaa kaloo muhiim u ah maanta inaan wasta ka xariiqo warsaan dhulka ugu dagaalamayno iyo badda dhiigga dadka Soomaaliyeed aan ugu dagaalano أنا وحنا مثلا بدنا نجمع مكان وطن قبل إجرانا كخالصين. يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كعبة إلا الدنيا ولا النبي عليه الصلاة والسلام وحكم يسون لي خوف مسنا الله داديو. أنا لي جالس كده هذيني اللي ما تلا سوق جيسني عنده يصير مالك استهاد واكن در شارع المكان كون قفول ولا دلي الحساي ولا برور دقاي ورديق يقولك يا خالصين. dadkii dhulka horta yaa qaalisan horta anaga conceptiga inaaba qaldanba war dhulka dadka ka qaalisan ka xormo badan dhiigga dadka ka xormo badan dhiigga dadka ka muhiimsan dhiigga dadka ka fiican
sida aan badda u raadinayno waa inaan dhiigga qof kastoo la dulmiye u raadinaa ka igraanna aan ka bilownaa soos maaha laakiin markaan dhiigga yaraysano dhulka qiimo ma leh muwaadinkaa ka muhiimsan wax walba muwaadinkaa ka muhiimsan fikirkaas waa inaan ku celcelinaa laakiin annaga waxaa nala ka dhiga haddaa aragto qofku dhahaya dadka iyo dhulkaa muhiimsan waa keligii talis iska jir ha ku sirmin dadka iyo dhulka dadkaa muhiimsan dhiigga dadkaa ka muhiimsan dhulka saasay diinteena noo sheegaysaa saasay bini aadanimada noo sheegaysaa saasay qiyamka bini aadanimadana sheegaysaa qofka bini aadankaa muhiim ah marka waxaan u baahannahay inaan midnimo wax ku wada raadino dadka hadda kusii jira marka waxaan aad uga xumahay runtii dadka weli biyaha calowga kasii kaluumaysana habeen dhawada waxaan dhegeysanaha madaxweynaha xilkiisa dhammaaday dadkii inta ka hadloo dhan kaalintiisa waa abrishiyeed gareeya oo hadda ugu dambeysay doorkiisa waa loo wada sheegay laakiin asaga wuxuu isku dayay arrintii inuu kaga faa'iidaysto oo biyo calowga ka dhex kaluumaysto oo MOU-gii dadnimada waxay ku jirtaa ama decency wax la yiraahdo ama dadnimada waxay ku jirtaa qofka aad siyaasadda isku haysaa xataa guushiisa inaad qiri kartid qof asaga u diida mala guusha dadkii oo isku dayanoo dhaho baarlamaankiisdeeda u mahad celina war baarlamaankiisdeeda waa ka hadda la sheega waa qaldanay asaa taaganba oo waa qaldanayne maxaa ugu mahad celina tusaale aan haddeertaan anigii dhegdheer baarlamaankaasaa ku wada jirnay waxaan siixinay heshiis sharci la yidhaahdo dhaxal dhowr maxaa ku qornay ma taqaaniin inay dowlad soomaaliyeed ee shacabka soo doortaan keliya ay ka hadli karto arrinta badda iyo dhulka dowladdii xasan sheekh maxamuud iyo dowladda farmaajo madaxda kenya shacab maa soo doortay hadday badda ka aamusi lahaayeen ka waran dhaxal dhowr waa qaldanaa heshiiskaas sharcigaas baarlamaanka waa qaldanay waa heli kartii waxaa ku qoran dowlad dadka soo doortay war dowladda soo goorma gaaraynaa waxaynu waa wada tegi rabaa ya marka fiiri caadifadii emotional wax lagu gaaray war baarlamaankaas go-aankiisiina waa qaldanay waxaa ka daran wallaahi madaxweynaha waa ogyahay farmaajo waa ogyahay markuu hadalkaas jeedina inay baarlamaankii go-aankiisa qalad ahaa waa ogyahay sababtoo ah looyarayaa u sheega waa ogyahay laakiin daduu ku xume isleeyahay xaggaasoo ka baxay ra-iisul wasaarihiisii ku laabay kenya ay usoo dirto dhahay ra-isul wasaaraha oo goormay kugu diraysa kenya xagga uu ka aaday madaxweynihii jubbaland axmedoob oo la koray war waxaas dadnimo maaha maantaasoo kale waa maalin guuleed waa maalin la isku wada tahniideeyo waa maalin guusha la wada sheego waa maalin midnimo la muujiyo waa maalin xataa dowladda dariska ee aan guusha ka helnay loo muujiyo inaysa guushaas iyo waxaas ay tahay wax kale annaga ayagana daris aanahay waxa naga dhexeeyana ay ka badan yihiin waxaan isku diidanahay leadership kaas waaye hoggaankaas waaye hoggaankaasaa la yidhaahdaa ee hoggaan afkiisa iskaga aarsana cidda oo kale ku boodaayo maaha waa ilaahay mahadiis doo xasha shaq soo reeb inuu mahad celiyo intaasaa malaya baraaniyo marka waxaa muhiim ah midnimo soomaalida waxaan ku weyno ma ku helayno tafaraaruq waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo dalka wuxuu ku jiraa xaalad aan lagu fiirsan karin haddaan rabno inaan waxayna dhacsanno adduunka derisnimo kula noolaano horumar gaarno dowladnimadeena ay bilanto waxaan u baahannahay dowlad keliyana badbaadi kara war ilaahan ku dhaarshay qaran ildihiisa ballaqan yihiin dowladdiisana itaalkaa aragta ay leedahay dadkiisana oo qeybsan yahay miyaa adduun la tartami karaa lama tartami karaa waa ficneed habeen dhaweed markii oo madaxweynaha xilkiisa dhammaaday ciidankii kii booliska calankii militariga gaashiis lasoo dhoobay waxay calaamad ka tahay ciidanaan leeyahay sooma ciidanka xaa kuu joogaa dowladda aanay hayna ammaankeena ilaalisa oo 3,000 oo ciidan dalka Soomaaliya gudihiisa ka jooga marka in lagu qoslo markaad adduunka fagaaraha joogto in lagu qoslo ma aha adigana in asgeysan ma meel lagu qoslay waa inaad xishootaa
saas daraaddeed dowladdeena itaal male soo maaha qarankeena irdiisa waa ballaqan yihiin waa qaybsannahay marka waxaa la iska rabaa inaan midnimo ka shaqayno saas daraaddeed waxaan ka codsanayaa haddeer madasha wadatashiga qaran oo ay ra-iisul wasaaraha hogaamiyo ma fahamsantihiin dalka xaaladda ku jiro dalka firaaq dastuuriga ku jiraa ganacsigii waa dhaqaaqi laaya qof dhul maalgashanayso ama hanti maalgashanaysa ama wax tijaaro gashanaysaa ma jiro adduunkii kaalmada dhaqaalna sii jiray waa ceshtay soo maaha dayn cafintii mashruucii socdo waa istaagay fagaarayaashii caalamiga nala kama ogola dowlad malin sharci ah dowladda maandheedkeeda waa dhammaaday abay axmed keliya u tegi karnaa maanta uma aadi karno dowlad sharcigeedii waa dhammaaday waxaanoo kale waxaa la yidhaha marka hubanti la-aana la yihahdaa uncertainty uncertainty la yihahdaa dalkii wuxuu ku jira hubanti la-aan qof kasta waxay ku leedahay horta doorashada hala galo xataa kii dhul galan kuwa dhulka gala hadaa weydiis waxay ku leeyihiin dhulkii waa taagaya maxaa dhacay doorashada la sugaa war wadankii halisa ku jiraa saa haddii kusoo socda dhibaato waaye walaalayaalow waxaan annaga hoos noogu sheegteen intay isku imaatiin ummadda soomaaliyeed kor ugu sheega haddaadan ergo 100 qofooda ku qaban karin doorasho dadka u sheega haddaadan laba magaalo doorasho qaban karin dadka u sheega wixii aad doorasho ku qaban kartaan tabar ummadda soomaaliyeed u sheega war-iisul wasaaruhu ummadda taas ku hogaami wa dowlad goboleedyo go-aankaas qaata wax dambo anaga aan farmaajo u haysano male farmaajo mas-uul astoo wareejiyey wuxuu gadaal ka dhadhiba arrin kaleeto waay laakiin golaha wadatashiga qaranaa mas-uul ah dalka kale saan kuma sii jari karo mas-uuliyad taariikhiya ka ratimaysa xaaladan firaaqa dastuuriga dalka ma ku sii jiri karo wax walba waa istaag wax walba waa taagan yihiin adduunkiya maalin kasta wuxuuna leeyahay wasiiradeena markay meelaha tagaan ay ajnabiga soo qaabilaan war dalka doorasho ka qabtaa lagu haya aan ina caawino aan ila shaqayno amisom waa aragtada maandheedkeedii waxaa laga dhigay hyber wax la yihahdo un-ka la hoosgeeyey waana laku wareer waana laku daalay dowladnimo ma jirto waa la iska safraa diyaarada lasii saaran yahay intaa la iska aadaa dalkanba inuu firaaq dastuuri ku jiro oo xaalad hubanti la-aana ku jiro oo halis ku jiro oo amnigiisii irdaha u taagan yihiin maalmeed waxaa laga dhixi nin saaxiibka meeshaan fadhiya ii sheegay shabaab inay dacwooyinka ku qaadaan muqdisho mool dhexdiisa oo leeyihin haddaar dacwo qabtay ima halkan waa dhibaato intee rabtaa lagu leeyahay hadda wardalkiiba gacantuu ka bixi rabaaba waa ka cabsanaynaa inay madaxtooyada ku qabtaan marka dambe dalkii gacantuu ka bixi rabaa waxaa la iska rabaa mas-uuliyaddaas madaxda dowlad goboleedyada waa imaqlayaan mas-uuliyaddaas inay qaataana laga rabaa mas-uuliyaddaas inay qaataana laga rabaa ra-iisul wasaarow madaxda isku yeer dowlad goboleedyada shir qabo go-aano ha la gaaro doorashada ha la dedejiyo ha socoto dalka xaaladan kuma sii jiri karo mas-uuliyaddana adaa lagu idmada adaa qaadaysid ciddii kala hor timid oo dhibaato sheegtana ummadda u sheegay hor imaw dadka hor imaw hebel iyo hebela wax laga soo cosiile ayay dheh war dowlad goboleedyada ku dhiman yihiin sanataradani saaxiibkii senator dhegdheer sanatarada laga reebay hala soo dhammaystiro waxaa u malaynaa galmudug waxay ku dhiman yihiin meesha la yidhaahdo iyo jubbaland walaalayaalow soo dhammaystira sanatarada hal maalina doorashada qaban kartiin qabta si aan u bilaabno tii xildhibaanada dadka soomaaliyeed si ay kor ugu hayeen arrin doorashada waa ku daaleen waa lagu dhiig baxay waa lagu dhibtooday dalkii xaalad halisa ku jira intaasaa kusoo gabagabaynaya mar kale waa idiin mahad celinayaa inaa xafaddan ka soo qayb gasheen ina ay xaal mariseen waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu